boqor Faysal Cismaan Faarax oo kamid ah madax dhaqameedka dalkan Soomaaliland ayaa maanta mar wareysi qaas ku siinayay magaalada Burco muqbaahiyaha caalamiga Star TV waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee dalka isagoo sidoo kale dhaliilo u soo jeediyay xukuumadda Soomaaliland boqor Faysal oo ka hadlay arrimahaasi waxa uu yiri sidaynu wada ogsoonay taariikhdu waxay ka sheekaysaa tagtada waxayna faalaysaa timida toogta kalena way odarastaa anoo taa ka ambaqaadaya waxaan ka soo bilaabayaa udub maxaynu ka dhaxalay udub waxaynu ka dhaxalay dad mid ah oo midaysan iyo dal midaysan dollar jaban dadka direyska sitoo militariga oo hal dhinac dhufayska kaga soo wada jira daris wanaagsan oo nabad ah iyo dunida oo ina daadihinaysa dekad magac ahaan iyo manfac ahaanba aynu leenahay maanta ma hayno dadkii midaysnaa mana hayno dalkii midaysnaa ma hayno ciidamadii direyska sitay oo hal dhufays meel kaga wada jira halka dollar maanta waxa uu marayaa 10,000 halka uu waqtigii udub ka ahaa 6,000 dekadii magac ahaan mooyee manfac ahaan ma haysano 30 sano ayaa kareedadii la sii qaatay sidaa darteed waxay su'aashu tahay ma horeynu u soconnaa mise dib shaki waxaanu ku jirin inaynu dib u soconno islaan oo aad ugu ololayn jirtay xisbiga kulmiye ayaa odageedu wuxuu yiri iska nasoo inaga daabuuqan way diiday intii kulmiye jiraba way ololeynaysay markii imika sanadu dhamaaday ayuu u yeeray wuxuu yiri saadoy intii wadanka aadimika aynu joognay ee kulmiye ka horeysay guryaheenu labay ahaayeen dumarkana labaan qabo mid adiga ahayd gawaaridana labaan lahaa gawaaridii maanta mid baynu hor yaalo mid baynu cunay guryihiina mid baynu iibinay dumarkeena mid baan fureen ma horeynu u soconnaa horta mise dib shaki waxaanu ku jirin inaynu dib u soconno boqor Faysal Cismaan Faarax ayaa waxa uu sidoo kale fariin u diray komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo ku tilmaamay in mas'uulka yihiin mushkiladaha siyaasadeed ee dalka ka jira waxaana boqorku fariin ku saabsan in iscasilaan uu hawada u mariyay waa sida hadalkiisa u dhigaya hogaamiyaha wanaagsani xadhiga dhinac buu ka hayaa wuxuuna og yahay dhinaca kale inay shacabkiisu hayaan marka ay shacabku dabciyaan wuu giijiyaa hogaamiyaha wanaagsani marka ay giijiyaan wuu dabciyaa inaga maanta keenu markii aynu giijinay oo xisbiyadii qaranku ay giijiyeen isna wuu giijiyay waxaynu ka eegnaaba waa gig iyo xadhiga oogaayo meesha lagu kala yaaco haddaba si taa looga hortago yay la gudboontahay inay maanta fursadda ka faa'iidaystaan waxay la gudboontahay komishanka qaranka war maadaama dadka garta u qaadi lahaydeen aanay idinku kalsoonayn war maadaama labadii dhinacba ay dabci waayeen war maadaama wixii ilaahay idinka qoray aa ka gurgurateen war maadaama damiirkiina iyo diintiina iyo dalkiina idinkoo u turaya iscasila si dalka iyo dadku ay u badbaadaan lama bedeli karo wal hal la bedelo gartayada gali maayaan waxa la isku haystaa waa idinka ka damiir ahaan iyo ka diin ahaan iyo ka dadnimo ahaan inta isqiimaysaan dalka iyo dadkaba u tiro iscasila haday taas idinku adkaato oo muddada idin hadha iyo lacagta idinka aad qaadanaysaan qiimaynaysaan akoon aanu idinku soo shubno soo sheegta ka shacab ahaan muddada idin hadha oo dhan mushaarkeeda shacabka idin siinaya si dalka iyo dadku ay uga baxaan dhibta maanta haysata dalku wuxuu u baahan maanta in ehlo xal wal aqd ay u kacaan Afrika oo dhan ay Afrikada geeskeedii ayaa la midaynaya fursadii aynu ka faa'iideysan weyna intay Soomaaliya kaligeed ahayd way luntay abay baa soo baxay Ethiopia imika geesko dhan baa la midaynaya dibadiina way naga xiran tahay daahi baa leeynoo soo rogay sida awgeed waxaan leeyahay ehlo xal wal aqd haysu yimaado dalku maanta waxa uu baahan marxaladda uu ku sugan yahay in laga samata saaro waxa uu baahan yahay in laga loo fakaro sidan ka wanaagsan tusaale ahaan xisbiyada qaar waxay ku eedaynayaan xisbiga la yiraahdo wadani inuu caara ka dambeeyo caara xisbi ka dambeeya ma jiro shacabka Soomaaliland oo dhan waxay uga fadhiyaan dawladda maanta joogta ciidankii midaysnaa ee loo tiriyay haday aqli u waayaan oo cilmi u waayaan oo cudida isugu keenaan u waayaana inay iscasilaan oo ummadda meesha u baneeyaan boqorkan wax ka weydiinay natiijada shirki ka qabsamay buurta gacanlibax iyo xukuumadda Soomaaliland ay jawaab ka bixisay qodobadii kala duwanaa shirkaasi ka soo baxay ayaa waxa uu sheegay gacanlibax shirkii aanu ku shiray jawaabtii aanu ka sugaynay waanu helay waxayna noqotay dalkan aniga ka madaxweyne ah madaxtooyadana waan rarayaa meel kasta maadaama magacaygu uu miin ka bilowdana xaafadayda iyo reerkayga ayaa iska leh sida maayirka sida maxkamadda sare sida militariga sida maaliyadda meel kasta oo macmacaan iyo miisaan la cid kale ha sugin waliba waxa inta ka daran madaxtooyadana waan rarayaa oo xaafadeedana u raranaya si degaankayga guryihiisu ay qaali u noqdaan
macal asif lacagta madaxtooyada inagaga baxaysa inaynu ku rarro baahiyo badan oo asaasi ah sida waxbarashada sida caafimaadka sida caruurta daami maalintii dhawad inagaga dhimatay sida caasimadda kudaafada laga guro sida dugsiyo farsamo gacmeed oo la furo sida shaqo abuur waxyaalahaas oo dhan oo u baahan in wax laga qabto waxa laga doorbidaya danta ashqaas gaar ama dad gaar aad baan uga xumahay waxaan sidoo kale hambalyeynaya mustambeedkii amray iyo gudidii garxajis ee fulisay iyo garbihii burca ka raacay ee dadkii dhibaatadu dhex martay ee walaalaha ahaa ee hawshooda dhammayn kari weynay ee jigjiga lagu dhammaynayo loo raray dadkii halkaa raashinka iyo waxyaalihii ummadaasi u baahnayd gaarsiiyey isla markaana dunida maqashiiyey in loo soo gurmado cod dheerna ku hadlay waan hambalyeynayaa waxaana leeyahay hambalyo ugu dambeyntii boqor Faysal Cismaan Faarax waxa uu ka hadlay safar la sheegay madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdi uu hogaaminayay ku soo gaari doonaan magaalada Burco kaasoo sida la sheegay la xiriira in madaxweynuhu xadhiga ka jari doono jeel weyn oo laga sameeyay magaalada Burco boqorku waxa uu arintaasi ku tilmaamay nasiib darro weyn isagoona iska rab dhigay imaanshaha madaxweynaha ee qalin jabinihii jaamacadaha iyo sidoo kaleeto xadhiga jarka jeelka waxa la imanaya xisbiga kulmiye iyo hogaamiyaashiisii oo dhamiyo madaxduba ay imanayaan Burco waxayna u imanayaan inay jeelka furaan aad baan uga xumahay jaamacadda burca ku taala iyo jeelkeeda iyo ma miisaan badan war dadkii aqoonta baranayay goobtii ay ku baranayeen in farxadda la wadaaga hadii la tahli kari waayay dadka dambiyada gala halkay lagu xirayo in farxadda la wadaaga aad bay xun tahay taariikhdana barakool ahaan waligay ma maqal madaxweyne jeel furayo waligay ma maqal cidii aragtooy meeshii aad ku aragto iyo sawirka ay soo dira barakool ahaanna wax waafaqsan ma aha taana waxaan leeyahay war mar hadaad jaamacadii u iman kari weydeen jeelkeedana iska daaya وخالد بكيلة ورك مقباهية عالمية ستار تي في برعو.